kulantan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada halkani waa beejka Kabtan Liibaan. warar naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa ay sheegayaan in lagu dhaawacay magaaladaasi ninka waayahan dambe baraha bulshada la wadwado oo lagu magacaabo Ahmed Rashid, waxaana la sheegayaa in ay ninka ay dhaawaceen dad careysan oo la tuhunsan yahay inay yihiin team Sharma Boy, kaasoo waayahan dambe dagaal baan uu kala dhaxeeyay Sharma Boy iyo Deeq Darajo. ilaa hadda boolisku wax war ah kama ay soo saarin falkan dhacay. kol hore ayay ahayd markii uu Ahmed Rashid jir dilay mid ka mid ah youtuberada Soomaalida ee ku nool ariga Kenya, waxaana loo badinayaa in ay arintaas ku lug leedahay dhaawaciisa ayna tahay aan hore. دلكو حلا قيشا دمعدي دوبتي درتو وحيلا ويدا دحوشان مقابشي دلكو حلا قيشا دمعدي دوبتو درتو وحيلا ويدا دحوشان مقابشي badamay qararki waynaad dhadhamisa badamay qararki waynaad dhadhamisa so awadan yo so awadan yo so dilan maysid so dilan maysid so dilan maysid del so awadan yo so dilan maysid so dilan maysid so dilan maysid del kan mid ka mid ah youtuberada Soomaalida oo ka hadlaya dhaawac soo gaaray Ahmed Rashid. ninkaas waa kii kibirka badnaa weeye, kibirka ilaah waalahe waa ninkii kibirka badnaa weeye. Ahmed Rashid xabada dhalinyarada ku dili jiray, hooyooyinka baadi jiray, gacmaha goosan jiray, ciili jiray, dadka Soomaaliyeed ku soo hoos noqon jiray, masaakiin iyo kuwa aan maal haysanba dhiigooda meeran jiray. isbitaal buu ku jira maanta. yaa sawirka ka qaaday, yaa soo diray, mid kasta oo ku agdhow waa mid aragiisa iyo muuqiisa dhibsaday. kan dhakhtarka la jooga iyo kan soo booqanaya iyo kan ehelka u ah iyo askariga iyo kalkaaliyu intuba xaalad kasto baan iyo wax kasto oo magaranaysa hay'ad dibadaabiye oo dad ku sameeynayo waa kuwa sawiray. waa aragtaan madaxiisa inuu bararay, xaqii baa ka dilaacay oo ka iftiimay. waxa weeye ninka dhalinyarada waa juquraan waa nin miskiin oo kala lacbay. dadka isla jooga aragtidoodu maxay tahay? maxaa salama horana dadka Soomaaliyeed fariinaan u wadayo inay maqlaan aan doonayo. ninkii maanta isbitaal buu ku jiraa, dhakhtar buu ku jiraa, waana bararayo dhiigii baa ka soo baxay. xaqaad ifiseen iyo dulmiga dhash iyo dhalaanka iyo dumarka laga galayo iyo ducada la ducaynayo waxaad u haysataan ilaaha weyn inay wax ka qarshoon yihiin. wallahi alladhi la ilaha ghayru ilaahay baa sheegay oo qirayo yiri qofkii muslimka iyo dulmiya waan soo qabanaya. wax madax barariyo waa dulmiga muslimiinta, waxa halka jiifiyo waa dulmiga muslimiinta. waxa qof kasta subax uu noqday waxa weeye jabkiisa iyo dhibaatadiisa uu doonayo waa dhibaatada muslimiinta. imise hooyo maskiina uu dhasheedii iyo dhalaankeedii dulmi ku dilay, imise gabdhood oo masaakiina ayuu ciil baday oo walaalaan ka dhigay, imise aabuu gablan ka dhigay. waxay la tahay ducadooda ilaahooda ay leeyihiin inuu cidla kaga badbaadayo. waa maya haddaba dadkii Soomaaliyeed ee isla joogay ee baada laga qaadi jiray iyo candha calaysay maxaa u qorshaa ninka kan isbitaalka yaalana muxuu hamiyo danaynaya ana idin hayo dhagihiinaysiye. waxa weeye ninkan isbitaal buu ku jiraa,
maxkamadina way ku socotaa isagoo xaal uu sida yahay sina ku badbaadi maayo dawlad hadday noqoto mid xildhibaana iyo mid dawladda wada iyo mid kasta oo damiir leh oo Soomaaliyeed dibtiisa u muuqatay wuxuu dekanaa oo galay waa la ishaaranaya xaalad kasta oo xanuuna ama wadna qabad ama dhiig kar ama waxa uu tilmaansanayna waxa la yiri maxkamad hori mayso marka waxa qorshaha loo wadaa ninkan in la dhoofiyo canda calasay iyo kuwa badan oo miirashada dhiigga bulshada Soomaaliyeed amal ka dhigta waxay danaynayaan inay lacag isugu aruuriyaan oo ay ninka dibadda u diraan waxa dhacda oo ninkaas iyo kuwa u adeegay amal ka dhigtaan markii la waayo wax la dilo in masaakiinta koo lacabyasha ama darbi jiifyada la dilo qaar waxa jira hatta aan koo lacabin aan guriyahaysano muslimiinimo iyo naxariis Soomaalida ku og dabeetana isla iyo nawaaxigeeda sadaqad u soo doonta oo aan guriyahaysan kuwaasay dilaan kolkaas ay dhahan tuugaan u dilaa hatta waa markii ay waxay magaranaysaa de tilmaansadaan ama tuhum ku sheegan ay waayaan cid tuugsatay isla ma timaadaba nag bay ka dhigaan nag darbi jiif halka ma jooga baan ku yiri nag bay ka dhigaan maalinba sidii mid loo diiranay inta masaakiin iyo muslimiin iyo gaal nooc walba ahaato oo mu'min aabaha iyo aadana ah dulmi lagu dilay kuwa tiri cadad ugu koobi kara haddaba ninkii waa carar oo dibad buu doonaya dhakhtar baana la leeyahay qorshaha lagu geeyo isagoo maxkamadda lagala cararay qorshahan waxa wada canda calasi iyo kuwa baad siin jiray wardadku haaye waxa ilaahay mahadiisa intii damiirka lahaa ee dadnimada lahaa ee damqashada lahaa ee diinta lahaa ee Soomaaliyeed inay ka wada dhigdhiyeen oo ay uf dhahan qabiil iyo qurun oo uf dhahan dulmi hase ahaatee wali waxa jira kuwa dulmiga ku taageerayo oo maal iyo qarash inay ku bixiyaan doonayo ay dibadda u dhaafiyaan dulmiga goosta iyo xaq iyo maxkamad in la mariyana ay ka dhigdhiyaan kuwa waxaan leeyahay sida uu yeelo waxba kuma ilaahay inay idinkuna u taala sida uu muuqiisu u bahdilay yahay waxba ilaahay kuma ay inaad u bahdilataan qof kasta oo aadanaha dulmiya dhiig Soomaaliyeed daadiya dhal iyo dhalaan ka ohsiya hooyo darajadooda duleeya ha ogaado ilaahay kama qarso qof kasta oo kibir badan oo awood isbada oo qori qaata oo ilaahay cidigama sareyso ha ogaado waa kaas ilaahay kama qarso kibirkana isaga leh isagana weeye midka aanan xanuunsan ما نكي ولا شيء ركعها أنتوا شنطة حبة سيدا أقول بل 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 ماذا حكي استاجا باسكولات كلا شو قادرين ما بل ما أنت تبردردي سيتك دردي سفيري ما أودي هي كبركي ما كرشدي هي كرتدي ما عيركي هي عقدتي وبدأ يدك Soomaaliyeed ما Soomaalidu meel walba ay joogto kama dhamaato aana iyo wax la mid ah daawade waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto page-keenana Kabtan Liibaan aad follow dhahdo si share garee si ay asxaabtaada